بسم الله الرحمن الرحيم dhammaantiin waa idin salaamay meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada muuqaal aan idinla wadaagi doono insha allah mar dhow muuqaalkaas wuxuu ku salaysan yahay dhawaanahanba bulshadu waxay aada isku weydiinayaan xisaab celin laga rabay guddiga cawaale waa garoon ku yaala magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug oo guddi isxilqaamayaala ay ka shaqeynayeen dhismihiisa iyo qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisa garoonkaasoo siyaabo kala duwan lacagihiisa loogu ururiyey markii ugu horreysay lacagta loo ururiyey shacabka gaalkacyo iyo shacabka guud ahaan caalamka jooga ayaa isku soo dardarayay $1 kontonka senti 10,000 iyo meelaha waxyaaba lamid ah markii dambena waxaa dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaare xasan cali khayr allah uu siiyay $220,000 oo uu rajeynayay in garoonka maaragtay meel fiican oo wanaagsan gaarsiiso meel wanaagsan buu soo gaaray meel fiican buu joogaa maasha allah gabagabuu marayaa waxaa dhimanayd lacag $186,000 oo ay dowladda Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni u ballan qaaday ka hor markaa dad badan baa waxay isweydiinayaan garoonka maxaa ku dhacay uu la dhamaystirmi laayahay muxuu lacagaha kale ugu baahday lacagtii hore maxay u dhamaystiri kari weyday iyo waxyaabo lamid ah marka si guddigu si transparent ah oo bulshada ay u arkaan halkii senti oo kasta oo soo galay garoonka xisaab celintiisa ayay waxay sameeyeen guddigu inay xisaab celin sameeyaan xisaab celintaasna runtii ay la wadaagaan bulshada si openly ah anoo ku hadlayaa runtii magaca ummadaas kala duwan ee maaragtay daneynaya inay arkaan iyo sidoo kale anoo ka tirsan guddiga og sida wax u socdaan haddana waxaan rabaa inaan idinla wadaago xisaab celintii uu soo gudbiyey walaalkeen Burhaan Cabdullaahi oo ah xoghayaha guddiga isxilqaamayaasha dhismaha garoonka cawaale oo ay guddoomiso ka tahay Caasho Geela Diiriye iyo guddiga firfircoon oo runtii habeen iyo maalin aan ka seexanin in maaragtay garoonkaasi uu dhismo uu hagaago marka waxaan rabaa si dhammaanteenba inuu aragno oo aynu maaragtay uga wada qanacno inaad ila daawataan muuqaalkan aan idin daawadsiin doono ee soo socda muuqaalkan waxaa runtii duubay oo edit gareeyay walaalkeen Saciid Cabdullaahi Kulmiye Nadaara guddigaa soo bandhigay maadaama anigu guddiga xubin ka ahay maadaama dadka maaragtay isoo weydiinaya fariimo kala duwan oo ku salaysan xisaab celinta guddiga iyo shakiyaadka ay muujinayaan si aan uga bixiyo waxaan go'aansaday inaan page-kaygan ama channel-kaygan Faatma Axmed Gaashaan YouTube channel-kaygan idinku soo bandhigo muuqaalkaas oo la daawataan insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ku qanci doontaan wixii comment ama fikradaha ama waraha hoos baa nagala wadaagi kartaan insha Allah wixii ka soo kordhay gabagabada garoonkana waxaan rajeynayaa iyo muuqaal kale oo xagga dhismaha garoonka uu marayo inaan halkan idinkugu soo gudbiyo insha Allah iyo hadda meesha uu marayo meel fiican buu marayaa roogii waa u yaala waa u diyaarsan yahay maxaa la yiraahdaayay alaabihiisa dhan waa diyaarsan yahay qalabkiisa waa yaalaan tarabuunkii waa dhisan yahay kuraastii waa diyaarsan tahay VIP-da waa dhisan tahay kaliya dhamaystir iyo naashnaashkii qurxintii hagaajintii iyo layrintii iyo wixii baa dhiman marka insha Allah muuqaalkaas kale aan ka sheekeynayno insha Allah waa idin soo gudbin doonaa halkan aad kala socon doontaan waxaan idin leeyahay daawasho wanaagsan xisaab celintii garoonka $1 kasta oo soo galay sidoo ahaa iyo meesha ku baxay iyo wax hadda akoonka garoonka cawaale stadium u yaala oo ugu jira waxaan rajeynayaa dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ballanqaadkiisa inuu ka soo baxo maadaama hadda uu joogo gaalkacyo waxaan ka sugnaa waxa weeyaan inuu lacagtii uu ballan qaaday oo garoonka ku dhamaystirmi lahaa inuu madaxweynuhu bixiyo sidoo kalena uu garoonka arko intaanu ka bixinin ama uu ka tegin magaalada gaalkacyo bal meesha wax marayaan guddigana uu la fariisto waa codsi waxaan rajeynayaa dadka madaxweynaha ku xiran oo dariska la ama u dhow inay fikirka ayaguna nala qaataan oo nala gudbaan aad baa mahadsantihiin daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waa ku faraxsanahay maantay inaan halkan ku soo bandhigno xisaab celintii garoonka cawaale maalintu soo bilowday iyo ilaa hadda uu meesha u marayo sidii maama Caasho Geela sheegtay
anigu waxaan rabaa inaan soo bandhigo qaabkii lacagu nagu soo galeen iyo sidii nooga baxeen iyo heshiisyadii aan la galnay kambaniyada sidaan ula macaamiltanay. runtii waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo garoonka Cawaale ka qayb qaadatay, si kastaba ha uga qayb qaataan, hadday tahay cod, hadday tahay lacag, hadday tahay taageero, dhan kastaba waa u mahadcelinaynaa. garoonkuna waa garoonkiina Cawaale. runtii dhalinyarada meediyada oo mar kasta na garab taagan, saaxiibaday Saciid Nadaara, Mustafa iyo ay qaarta kale oo dhan oo aan hadda magacyadooda ka tegay. maantay waxaan jeclahay dadku waxay jecel yihiin wixii dadka ay geliyaan ama wax ku bixiyaan inay helaan feedback ka yimaada dadkii wax u dhiibeen. runtii waxaan rabnaa inaan bulshada reer Puntland aan u soo bandhigno wixii aan ka qaadnay, siday ku baxeen, iyadoo maaragtay transparency oo lagu kalsoonaan karo. taas halkaasaan uga baxayaa. waa June 15 2020 garoonka Cawaale waxaan ka rabnaa inuu noqdo sida tan hadda idiin muuqata oo quruxda badan oo ka kooban filigii lagu ciyaarayay, tarbunadii afar ka kooban qaybood iyo VIP-dii, sidoo kale qaybta community center-ka oo iyaduna arrin muhiim ah ka qaadan doonta bulshada, arrimaha bulshada. garoonka waxaa idin tusayaa wax kale maaha, waxaan rabaa inaad wax ka ogaataan dee kan waa tarabuun, kana waa tarabuun, kana waa tarabuun, kana waa tarabuun, kaasna waa filim meeshii VIP-dii. intaan kale waxaa lagu talagalay in la dhigo interlock si aysan wasaqda garoonka ugu gudbin. garoonkan Cawaale waxaa la bilaabay, waxaa la dhisay 1972, waxaan lagu dhisay si maaragtay iskaax u qabso ah. maantana waxaan ku dayactiraynaa si iskaax u qabso oo arrin ay bulshada u kacday weeye. qaabka lacag ururintu way kala duwaneed, xaafad xaafad, idaacadaha, ganacsatada, qurba joogta, waxbarashada, dowladda iyo weliba barnaamij la yiraahdo challenge. waxyaalaha garoonka Cawaale uu heli doono insha Allah markuu aan rabno inaan ka qabanno waxa waaye markuu horeysa inay helaan injineero tayo leh oo aqoonta iska leh garoomada dhismahooda, inaan u soo iibino qalabkii garoonka oo dhammaystiran, hadday tahay kuraas, hadday tahay roogii, hadday tahay qalabkii kale, dhismaha darbiyada garoonka, hagaajinta base-ka ama meesha lagu ciyaaro garoonka, qolalka ciyaartooydu, xafiisyada iyo musqulaha oo shub ah oo kaas waa VIP-dii, tarbunada oo afar qaybood ka koobnaanaya oo 35 mitir ba qaybtii tahay, nalalka garoonka, kaamarada garoonka, siliga garoonka iyo kuraasta macallimiinta iyo kaydka. intaas waa intaan jecelnahay garoonka Cawaale markuu dhamaado inuu yeesho haddii Ilaahay yiraahdo. dadku way jecel yihiin markii la yiraahdo lacagta. waxaan ka codsanayaa qof kasta inuu diyaarsado buuggiisa iyo qalinkiisa. waxaan rabnaa halka inaan kusoo koobno marka u horeysa lacagihiina soo galay. 2018 waxaana soo gashay lacag 116,440. waa qaybtii koowaad. qaybtii labaad waxaana soo gashay waa 2019 28,646. qaybta saddexaad waxaana soo gashay 220,601 dollar oo dowladda federaalka ka timid. labadaas lacagood horena waxay ka timid shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan. qaybta saddexaad waa 2019 waxaana soo gashay lacag 3,275. wadarta guud lacagtana soo gashay waa 368,962.67. halkan waxaa ku qoran lacagtina soo gashay siday nooga baxday oo samir ayadana kooban. waxaan rabaa inaan soo koobo ayadana soo iibinta alaabtii roogii iyo kuraastii lacag 89,182 baa ku baxday. dhismaha darbiga 21,933. kharashaadka qalabka garoonka macnaha shipmentigii from China to Bosaso 21,336. kharashaadkii qalabka garoonka waa iyadana waa shipment macnaha waa transportationkii from Bosaso to Gaalkacyo 3,901. dhismaha garoonka, tarabuunada, VIP-da iyo filiga garoonka lagu ciyaarayo waxaa ku oo shaqada laga qabtay waxaa ku baxay 192,273.5
toddobaatan iyo afar injineeradii oo isugu jira assessmentigii marka hore ay ku imaanayeen garoonka designka ay sameynayeen iyo imaanshihii garoonka imaanayeen soo boqonayeen 14,800 baa ku baxday engineerskii isla ayagii cuntadoodii hoteelkoodii waxaa ku baxday 1,399 injineerada tigidhadoodii iyo fiisahoodii 4,870 qodid godadka musqulaha waxaa ku baxday 969 geotextile 3,625 waxaa weeye kani waa bahal ugu fidinayo garoonka intii aan la dhigin rooga oo kala celinaysa shayga iyo rooga waardiyaha garoonka 2,415 kharashaad guud oo iyagana aan faahfaahin doono 7,342 marka lacagta garoonka ka baxday waa 3,300 waxaan ka wadaa 364,046.37 halkan waxaan kusoo koobaynaa masana wixiina soo galay iyo wixii naga baxay dakhliga garoonka soo galay waa 368 962,662.67 kharashaadka baxayna waa 364,46 haraaga garoonka haray lacagta uu hadhay waa 4,916.30 haraagaas marka xagee yaala dahabshiil bank 3,107 taala amal bank bansiga yaala waa 1,095 salaam bank $200 baa taala daryeel bank ama iftin bank $101 baa taala idahab account 260 baa taala sahal account 3,17 baa taala dahabshiil london account $150 baa taala halka waxaa idiin muuqda markaas 4,916 noo taala meelaha ay kala joogto halkan waa qalabkii garoonka u yimid kuraasay noqonayso garoonka caqabadii qabsaday intaan wadnay waa kuwaas meesha ku qoran haddana waxaan u gudbaynaa qaybtii labaad ah faahfaahintii lacagta oo mid kasta meeshaan ku qornay annagoo faahfaahinayno faahfaahin ka siinayno waxa meeshaan ku qoran mid kasta expensigeedii oo faahfaahsan بسم الله الرحمن الرحيم هذا waxaan u soo gudbinay faahfaahintii waxaan ka bilaabayaa lacagta dadweynaha ka timid intay la ekeyd lacagtaas waxaan rabaa inaan halkan ku faahfaahiyo 148,361 $607 senti waxay nooga timid dadweynaha waxaan rabaa inaan faahfaahiyo halkan meelo intii ugu dambeysay noo timid lacagta $1,000 waxay nooga timid maraykanka waa musadaq ah cabdisamin xuseen oo lacagtaas maraykanka nooga timid oo 2020 lacagtaas helnay lacagahan kale sahal bay naga soo galeen lacagtan 800 waxay nooga timid faransa dhalinyaro baa soo dirtay lacagtan 28,000 waxaa laga ururiyey puntland baa laga ururiyey boosaaso gaalkacyo garowe oo dhammaystiran iyo waliba dalka dibadiisa lacagta u horeysan soo gashay wataan hore 126,440 lacagtaas marka totalkeeda haddaan mar labaad kusoo celiyo 148,361 dhibic waxaan ka bilaabayaa marka expensiga meesha u horeysa halkan haddaa idiin muuqato waxaa ku taala 89,182 waa lacagta aan iibinta rooga iyo qalabkii lacagtaas marka waxaan u gudbaynaa sheet kale waxaa ka helaysaan sheetkaas quotationkii iyo wixii oo dhan oo dhammaystiran waxaan halkan ka bilaabayaa qalabka quotationkii kamirigu noo soo diray halkaas haddaa aragtaan 8,415 waa alaabta dhan alaabta halkaas oo ka akhrisan kadhaan noocyada ay tahay waa garaaskii kii caddaa kuraastii guluugii ama koladii baashi drillinka lagu markii waxaasoo dhan rabarkii injineeriskii imaan lahaa oo 3 qof oo dhigi lahaa 17 bir lacagtooda xataa waan siinay
lacagtaas waa quotation markii u horeeyay quotation heshiiskiisu waxa ku qoran marka u horeysa boqolkiiba 30 la deposit gareeyo marka shipment-ga intaan la gaarin boqolkiiba 70 in lacagta la dhiibo okay waxaan rabaa marka halka inaan ku soo bandhigo lacagta sida u qaateen company-gu okay company-gu waraaqdan soo diray waraaqdan sida idin muuqata waxa ku qoran waa receipt-ka macnaheedu waxa weeye waa lacag qabasho company-ga 25 May uu soo diray waraaqdaas lacagta u horeysay payment-gu wuxuu ahaa boqolkiiba 30 oo deposit ah 26524 kii labaadna waa kana waa boqolkiiba 70 oo balance ahaa 891 dollar dhibicsan waxay nooga timid buu yiri client-ga ama Xawaale Stadium lacagta totalkeeda halkaas ku taala waa 88415 dhibic 5 okay halkaan kaga muuqanaya marka marka la isku fiiriyo receipt-kaas 88415 way isleeyihiin waxa arki doontaan reference ah $700 760 xoogaa waa transferki lacagtan waxa lagu transfer gareeyay from Kalkayo to China company ila account-kiisa la geeyay taas waxaan uga gudbiyaa halkaas waxaan dib ugu noqonayaa 28600 waxaan ku noqonayaa ma 21933 oo lagu sameeyay darbiga garoonka ayadoo faahfaahsan waxay ku qoran tahay isla hoosta meeshan lacagtan waa taas ku faahfaahsan tahay waxa ku jiro dheeraad ah lacagta tigidhka oo loogu talagalay oo guddigu ku aaday meesha Muqdisho 525 inta kale waa dhismaha garoonka iyo waardiyaashii waqtigaas joogay iyo 1300 marka lacagtaas totalkeedu waa 21933 waxaan fundi iyo wax la mid ah halkaas ku arki doontaan waxaan u gudbeynaa masana lacagta ku xigta oo 21336 waa idin muuqata lacagtaas waa shipment-gii ama alaabta si loo soo qaaday waxaan rabaa halkaas marka company-gu wuxuu soo dalacday lacag gaaraysa marka u horeysay laba qaybood oo alaabta u timid 12600 sida u bixinay way marka okay waxaan u bixinay sida tan halkan waxaa markii hore la siiyay 6332 oo idin muuqata waa maana 6332 markii alaabta timid na waxaan siinay 6240 lacagta hadda isku darsataan iyo waad arkaysaan waxay noqonaysaa waxaan tan sahal akoonka uu leeyahay Xawaale Stadium baan ka dirnay waxaan u dirnay arbaabka doonta halkaas ayaduna way ku caday markii labaad waxa yimid qaybtii labaad ee rooga alaabta waxay nagu soo dilceen 8700 sida idin muuqata 8700 nagu soo dilceen company jooga China isla China jooga company-gaas sayaan lacagta u dirnay halkaana ka helaysan lacagta sidaan u dirnay 4382 4382 5 May mar baan dirnay markii alaabtii labaad timid 13 Mayna baan dirnay lacagtaas 13 waxaan bixinay markii alaabta clearance lagu sameeyay May 5teedina waxaan bixinay 13 kaas labada qaybood baan lacagta u kala bixinay marka halkaas waa iyadana waa clear lacagtan way isleedahay markaas xogaa 4350 lagu daray 4350 waa 8000 iyo waxay noqonaysaa 4382 dadku isku darsadaan hana fiiriyaan iyaga laftirkooda qof kasta calculatorkiisa waa inuu haystaa taas waxaan ku xijinaynaa 3901 dollar oo alaabta ah garoonka Gaalkacyo ilaa iyo Boosaaso qayb ka mid ah waxyaalahan kale ayagoo faahfaahsan waxaan ku siinay waa waardiye shaqooyin kale oo la qabtay waardiye okay waxa lacagtaas u badan lacagtan waa darbiga dambe oo garoonka 204 mitir ah ba waxa lagu sameeyay geedaha ku hoos yaala geedihii waa laga jaray shimita firsana waa lagu sameeyay lacagtaas ku baxday
ganjeelkan 477 ku baxday oo dib aan u hagaajinay waxaan kale waa waardiye okay waxaan waa kiradii waa wixii ka haray alaabtaas oo isku dardarnay waxa waa idin wada muuqdaan kulligood waxyaalahan waa arki doontaan waxay ku arki doontaan kamaniyada assessmentigan waxyaala aan kala saarnaba $700 waxaa lagu gaday jiyo may waa burburintii tarabuunka intaan shaqaba la qabanba tarabuunka lagu burburiyey waxaan waa waardiye kan waa waardiye intaasba kana waa waardiyaha rooga intaas waxaan moodaa marka iyaguna waxaan geli doonaa qaybta kale dowladda federaalka lacagta naga soo gashay lacagtana soo gashay oo shacabka naga soo gashay waa 148,351 lacagta baxday oo aan idin faahfaahinayna waa 146,552 lacagta hadhay oo intaas u hadhayna waa 1,809 lacagta qaybtaas ka hadhay saanayno iyada laftigeedu u faahfaahsan tahay daryeel bank salaam bank sahal bank iyo dahab amal iyo shirkadda dahabshiil london oo $1,809 taasna halkaasay ku gabagabooday waxaan u gudbaynaa 220,000 oo naga soo gashay dowladda federaalka ayadana waxaan rabnaa inaan si fiican u faahfaahino dadkuna ay u dhugmalaadaan waxaan hadda ka bilaabayaa lacagtii naga soo gashay dowladda federaalka siday ku baxday iyo siday kala ahayd lacagtan waxay ahayd $220,601 waxayna u kala baxday sida tan lacagta u horeysa waxaan rabaa inaan mid aan u faahfaahiyo haddii ilaah yiraahdo lacagtan waxaan ka bilaabayaa kibaarko hadda sida idin muuqata waxaan la galnay heshiiskaan la galnay wuxuu ahaa sida tan kibaarko heshiiskeeda waa kana waxaan ku heshiinay kibaarko lacagtan lacag dhan $344,979.56 kibaarko waxay contribute garaysay ama garoonka ugu deeqday $40,000 lacagta garoonka aan ku heshiinay waa $304,000 waxaana ku heshiinay inay sidaan lacagtan ku kala qaataan boqolkiiba 30 inay qaataan marka u horeyso advance ah 91,000 sidii muuqata marka labaad boqolkiiba 50 shaqada markay dhameeyaan inay boqolkiiba 30 qaataan oo 91,000 ah marka saddexaad inay qaataan boqolkiiba 30 markay shaqada dhameeyaan shaqada meesha ku qoran boqolkiiba 10 oo 30,000 waxaa loogu talagalay 60 beri ka bacdi markii garoonku dhamaado 60 beri kadib in lacagta la siiyo okay markii u horeysay kibaarko markeed u horeysay 26 bisha tobnaad waxaan siinay 91,493 kadib markii injineerka reportkiisa la helay injineerku wuxuu amray inay shaqadii boqolkiiba 50 qabteen waxaan siinay 14 bishii koowaad 2020 91,493 kibaarko waxay naga soo codsatay lacag 10,000 oo si codsi ay nooga soo codsatay inaan siino ayadana waa taas 10,000 baa siinay 8 bishii saddexaad 2020 halkaas waxaan ku dhamaynay kibaarko okay waxaa noogu xiga waxa la yiraahdo consultants designkii iyo visitkoodii injineerada imaanshahoodii iyo waxaasoo dhan waxaa ku baxday 14,800 2,500 waxaan ka isticmaalnay lacagtii dadweynaha naga soo gashay 12,300 waxaan ka isticmaalnay lacagta dowladda federaalka okay heshiiskoodii horna inaan galno maxaan ku heshiinay markii u horeysay kambanigi waa kan agostin baa la yiraahdaa magaciisa 23 September baan heshiinay waxaan ku heshiinay 11,300 inay qaataan oo garoonkaas ay ku dhisayaan 6,000 oo kamid ah waxay ahayd design 5,300 waxay ahayd imaanshahooda markay yimaadaan in la siiyo
60,000 oo designka qaabkaanay ahayd in maaragtay ay bay kala ahayd waxaan heshiisku ahaa boqolkiiba 40 inaan mar siino boqolkiiba 20 inaan mar siino boqolkiiba sida hadda idiin muuqata boqolkiiba 40 boqolkiiba 20 iyo boqolkiiba 40 u dambaysa waxaa marka halkan ku qoran anagu inaan mas'uul ka nahay tigidhka iyo viisaha iyo cuntadooda iyo chiefkooda inta shaqadaas socoto saasaan waxaa kaloo jirta $500 oo ah assessment inay ku yimaadeen markii ay fiirinayeen qof inay usoo direen uu yimid $500 iyaduna ay ku jirto qorshaha heshiiskii waa kana saxan waxaa dhacday marka masana heshiiskii waa dhamaaday maadaama waqtigii anagu nagu dheeraaday waxaan galnay masana another 3 months heshiis ah oo ka bilaabanaya 1 February oo lacagtiisu ay tahay total $4,000 oo loo bixinay sidaan 2,000 kun waa akhrinsan karaan insha Allah waa fursad baa u helaysaan adadana waan kala saxiixanay halkan waxaa ku qoran marka lacagtiisa u qaateen marka waxaan rabaa inaan mid idiin tuso qof kasta oo isku darsado si aayara inaad uga dirigtaan saas lacagtaas ku baxday sababtoo marnay waxa qof kasta u istaagsan karaa asagu laakiin anagu waqtigeena ka faa'iideysanayna halkaas waxa uu gudbiyaa injineeradii shaqada ay qabteen waxaan dib ugu noqonaynaa masana maadaama intaas aan ka soo qabanay halkan waxaa ku qoran lacag dhan $669 kambanigaas $969 waxaan siinay kambani godqodo ah wuxuuna godadka musqulaha ku qoday $969 taasna halkaasaan uga gudbayaa okay waxaa noo dhiban waxa la yidhahdo geotextile-ku waa taan hadda soo sharaxay wuxuu ahaa in alaabta garoonka roog intaan la dhigo meel yara marka meeshaas 2,800 waxaan kusoo gadanay alaabta 700 waxay ahayd from China to Bosaso 120 waxaan ku bixinay wiishka markii gaalkacyo la keenay kambani baa wuxuu bixiyay la yiraahdo surad inuu naga caawiyo Bosaso ilaa gaalkacyo transfer ku baxay tanna waxaan tusayaa marka geotextile-ka sidii aan u gadanay kambaniga waa kana kambaniga labada option buu na siiyay $2,805 mid ah iyo $22,000 marka waxaan idin tabar mahaynay anagu waxaan gadan karnaa kan oo ah $2,805 kambanigiina wuxuu noo soo diray caddayntii lacagtaas inuu naga qaatay waana taas boqolkiiba boqol lacagtuna waa $2,805 mar walba taas iyadana halkaas baan uga gudbaynaa waxaan ku xijinayaa tigidhada injineerada waxaa halkaa idin kaga muuqda waxaa ku baxay waa tigid cunto halkaasay ku taallaa waa $5,609 waa kala saari doonaa iyada laftirkeeda waxaan u kala saaraynaa tigid iyo cunto haddaa aragtaan waa hotel jazeera waxaa ku baxday lacag dhan $1,399 okay waxaan tegaynaa waxa la yiraahdo cuntadii jazeera waa tanaa dokumentigeedii waa afartaas invoice daa idin muuqato afartaas invoice markay nagu soo dalaceen kabacdi rasiidadooda waa kuwaas aydan halkaas uga gudbayaa waa mahadsantihiin waxaan weli gudaha uga jirnaa waxaan gelayaa waxa la yiraahdo Juba Airways wixii ama wixii travel oo dhan ah midnimo laba kambani ma isticmaalnay lacagta ku baxdayna waxay ahayd $4,050 lacag kale waxaa jirta marka 660 waan ka isticmaalnay lacagtii shacabka ka timid lacagtaas marka ayada laftirkeeda waxaan rabaa inaan tuso faahfaahinteeda rasiidadeedu waa kuwaana midnimo travel agency maca invoicekeedii this is waa Juba sidii lacagta ay rasiidadeeda ay u bixisay ayar inaan u socdo way fiican tahay si loo arko
halkaasna waxaan uga gudbayaa travelkii maxaa inoo haray okay waxaa jira shaqooyin kale oo la qabtay shaqooyinkaas kale waxaan rabaa inaan idiin soo koobo waa dhagaxyaan laga aruurinaya garoonka $350 alaab nooga timi meesha la garow wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo ahayd mutuleel wasaaraddu nisay $440 baa nooga baxday lacagtan waa waardiye tanna waxaa waaye biraha tarabuunka markii la sameeyay waxaan u sameynay meelo bira calaamada lagu sameeyay marka birahaas waxaa laga bixiyey $120 waxaan halkaas kusoo gabagabeynay lacagtii $220 ahayd $220,601 intii ku baxday waa taas lacagtiina soo gashay waa $220,600 $270 waa naga baxday $3,107 waxaa noogu jirtaa bangiga bangi statementiga waa kaas isagoo aan soo daabacnay saas lacagta ku hartay waa 3,000 adiga waa weyneynaya 3,107 waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka reer Puntland oo garoonkan ka qayb qaatay waxaan kaloo mahadcelinayaa dowladda Puntland oo iyadana garoonkan markasta dhiirigelinaysay hawshiisa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha khayr hogaaminayay oo iyaduna garoonka qayb lixaad ka qaadatay waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed wixii halka mugdi uga jiro inay nagala soo xiriiri karaan meesha ay rabaan meediyadu way furan tahay waxaan diyaar u nahay xataa in maaragtay anytime qaab kasta ay u jecel yihiin inay maaragtay arrintan transparency u noqoto qof kasta ha fiiriyo ha ka soo dhargo waxaan leenahay waxaan rabnaa Cawaale Stadium oo u ekaada sidaan quruxda badan oo aan jecelnahay dhammaanteen waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo waxaan mar kale u mahadcelinayaa dhalinyarada meediyaha oo markasta na garab taagan oo baahidayada maaragtay gudbinaya dhammaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Cawaale Stadium waa cawaalihiinii ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta ka dhimana inuu dhammaystiro. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.